dadka qaarkood oo maaragtay dadka maaragtay waliyaadu billaahi fi diinta ka fidnoobay markay koonka ka hadlayaan dee waxay uga hadlaan calaa jahlin inta badan xaqiiqatan jahli ahaan bay uga hadlaan marka waxaan rabaa waxaad maqlaysaa qaarkood doctor ayagoo leh waxba kama jiraan meeshaan cir wax la dhaho ma jiraba maa fi samaa hunaak samaba ma jirtay ku leeyihiin waxaan waa iska oxygen iyo wax la mid ah marka ilaahay baa inoo sheegay annagu waa rumaysanahay inay sama jirto waana wax maaragtay waaqic oo xaqiiqo ah maxay xiganayaan ma wax hadda ma xataa wax kulley oo sugan oo maba sugnaan kartee laakiin ma wax cilmi ah oo xataa laga niqaashi karo lagala doodi karo miyaa jira oo inkiraya in maaragtay koonka sama aysan jirinin miyaa jira su-aashaasaan qabaa anigu insha allahu tacaala in aniga la igu hormaraan jeclahay walaalka kadibna su-aalihiisa ama yarkaan kale su-aalihiisa markaas loo gudbo jazaakum allahu khayran taasaan kaga baxay aad baan ugu mahadcelinayaa doctorka aad iyo aad baan maaragtay leenahay ilaahay adigoo kale ha badiyo noo soo badi barnaamijta noocaas oo kale faa'iidada leh ummadda wax u taraysa جزاك الله خيرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال شهديا كجوابه والقاسم سؤال meeshan waxa weeyaan waa space iska maran oo bannaan marka wax sama la yiraahdo ma jirto horta sama inagu marka aynu leenahay lababa waa loo isticmaalaa intan sabab lagu tilmaamo iyo adduunka dhanba universe-ka dhanba ilaahay markuu leeyahay gaayadii uu ustaad soo qaadanayay soo أستاذ عبد الرزاق أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما لما تشيدو أنت يرى إنه حراري سن أما أتموسفيرك وانا نقون كرتا أو أتموسفيرك وين نقون كرتا أو مرر بدن يعني واو دريش قرانكو لكن سجود هذا السماء كونك أي الله إله هذا يوئك تصالح وحكم دها آياتي وإمك سوق عذني ويلي وحويان سورة داريات كتشتي سماء بأيد وإنا لموسعون يعني توسع كهديسي وإلهي أنك السماء أبورني أو بلارين إننا أقول so wa universe ka atmosphere kana ma ahin ka balaarani so labada jeer buu noqon kartaa marka in aad tiraahdo waxba ma yeelaan oo halkan inaga sareysay sama ma ahin de adduunyadii oo dhan baa inaga sareysa dhulkan aan ku taaganahay marka laga tago waxa soo xidiga iyo waxa soo dhan baa inaga sareeya halkan inaga ay ka hadlayaan sida caadiga ay refer garanayaan atmosphere kana de oxygen baa joogta oxygen waa maxay waa molecule so sidoo kale meeshu ma ahin wax bannaan waa meel ay isku galaan space iyo time so waa space time so space time ma ahin waxaad oran kartaa nothing adduunku wuxuu ka samaysan yahay waxa weeyaan space time matter iyo energy waba afartaas weeyaan afarta big bang ka soo bilaabmay dhagaxaasi waa matter يعني entropy iyo adduunkaas oo dhan waa wada energy-ga idceeda energy baa ka imanaysa waa kana waa material iyadii waa star so space time iyo matter iyo energy intaasaba jirtaba half wixii adduunka jira marka tiraa waxba yahay baa inaga sareeya so waa garaadlay un bay ka tahay laakiin ma ahin wax scientifically aad oran karto ama science ahaan waa waxba ayaa inaga sareeya waa meel iska banaano so awal baa saa la moodi jiray laakiin imika waxa weeyaan waxa la og yahay in space iyo time ay yihiin waxa inaga sareeya soo dhawo mahadsantihiin waan salaamayaa culimada meesha ku jirta iyo dictorkaba su-aasheedu waxay tahay horta saynisku ma noqon karaa wax diimaha inay run yihiin iyo inay ben yihiin lagu xaqiijin karo haddii sayniska uu diinta ka hor yimaado micnaheedu ma tahay in sayniska la qaadan karo oo diinta laga tagi karo su-aasheeda koowaad waa taas haye su-aasha labaad su-aasheeda labaad waxaa weeyaan 6 cisho ayaa lagu abuura buu leeyahay quraanka adduunyada iyo dhulkaba marka sidee big bang iyo isku waafaqayaan arrinkaani ma dhamaysay bal labadaas baa walaal su-aalahaygu way badan yihiin laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan hal u kala gudubno intaan hal wax wada sheegi lahaa oo ma garanaysaa aad hal marka wada jawaabi lahayd
way dhib male soo dhowow adigana waan kusoo dhaweynaya su-aasha koowaad waxaa tiri saynisku ma noqon karaa mid diimaha lagu beenin karo amaba lagu rumayn karo mid baa muhiima inaan isla fahanno saynisku waxa weeyaan waa shay xuduudiisa leh sayniskuna su-aal buu ka jawaabaa diintuna su-aal bay ka jawaabtaa xalqadii hore waxaan ka jawaabnay waxyaabaha bini aadamka diin ku keenay ama ku dhaliyey waa maxay ee ka dhigay diinta universal phenomena ama wax daahiro guud oo adduunyada ka wada jirta maxaa ay u noqotay waxa ay u noqotay fidri oo waxay ku abuureen su-aalo aanu saynisku jawaabna uba heli karin marnaba waxaa ka mid a maxaa kumaan ahay anigu kumaan ahay saynisku kama jawaabi karo saynisku maxaan anigu halkan u joogaa so saynisku wuxuu ka jawaabi karaa haddii aan baastoolad soo qaado oo aan laabta kaaga dhufto ama wadnaha kaaga dhufto maxaa dhici doona waxaa dhici doona inaad dhiman doonto yes laakiin miyaan kugu dhuftaa mise waan kaa daayaa waa su-aal u taala moral philosophiga ama falsafada akhlaaqda u taala ma ahin si uu saynisku ka jawaabi karo so saynisku xuduud baa uu leeyahay sax iyo qaladna kama jawaabi karo maan dilaa hebel mise waan iska daayaa ummadda miyaan gumaadaayoon xasuuqaa kama jawaabi karo saynisku so su-aalo uu saynisku ka jawaabi karo iyo su-aalo aanu ka jawaabi karin baa jirta marka sayniska in lasoo qaado oo la idhaahdo diin baa lagu disprove garaynaya de isku su-aalaba kama jawaabayaan maxaad iskugu keeni yes way dhici kartaa inaad comparison ku samayso oo aad tiraahdo waxa weeyaan waxyaabo ay diimaha qaar sheegaan iyo observable reality-ga inoo muuqda iyo waaqica aanino aragno waa iskhilaafayaan oo waa ay kala duwan yihiin laakiin si guud diimaha haddii aad u eegto tiraahdo waxa weeyaan diin baan science ku disprove garaynaya waxaan u arkaa anigu in my humble opinion inay yihiin laba waddo oo kala jeeda oo aan yani isa soo geli karinbaba saynisku empirical wuxuu ku salaysan yahay induction oo lab iyo experiments buu ku yala sameeyaa so experiment yani diintu ma ahin ama maxaan ku rahdaa fikirka iyo fidrada bini aadamku ma ahin to aad u bandhigi karto lab oo aad dabeedna odhan karto waxa weeyaan su-aashan buu saynisku ka jawaabay mar haddii aad aaminsanayd inay here after ama aakhiro ay jirto oo aad aaminsanayd inaad u timiday halkan inaad camal saalix iyo cibaado aad u timiday waa kanoo science anigoo adeegsanaya waxaas waxba kama jiraan so you can't oo diimahan oo dhan waxay ku saldhigtaan jiritaanka ilaah kaas oo aan subjectiva ku ahayn science-ka yacni ma hoos dhigi kartid science-ku maxaa uu baari karaa science-ku waxa uu baari karaa material iyo maado ayaa uu ku dhex shaqayn karaa isaga oo cause and effect relationship yani natiijo iyo sababteedii isaga oo baaritaan ku sameynaya saynisku waxyaabaha ka baxsan daahiradan waxyaabahan aynu taaban karno ee xisiga ah ee maatarka ah ma investigate garayn karo ruux ma baari karo saynisku waxna kama yaqaan shaydaan iyo sixir iyo waxyaabaha supernaturalka ah ee aan ahaynba aslanba maado iyo maatar aan ka samaysnayn ma baari karo saynisku so ilaahayna waynaga nidhi waxa weeyaan waa baa-in oo waa baa-in can khalqi oo abuurkiisa waa uu ka baxsan yahay mana aha maadana ma ahin space iyo time iyo energy midna ma ahin so saynisku maba baari karaba diinahan aynu ku hadlaynana waxay u saldhigtaan oy ku abtirsadaan jiritaanka ilaah adduunyadan abuuray oo bilaabay so markaa ismaba soo galaanbaba isma soo gali karaan yacni meelaha qaar oo ay iska soo gali karaan sida in aad tiraahdo waxyaabo aan observation ku ogaanay iyo waxyaabo ay diinta hebel tiri oo ay ku qaldan tahay tan laakiin si guud inaad yani diintii aad uga soo dhigto science-kan alternative-ba ama science-kan badiilba u noqon karin waxyaabaha ay diintu ka jawaabayso saa darteed ma wada saari karo oo diin kuma wada beenin kartid science waayo diin ku wada dhisanba science ma jirto oo waxa ugu weynay awoodda saaraysaa diintu waa maxay waa inay ka jawaabto su-aalahan ummad walbaba waxay diin u haysataan waa su-aalahan oo ay u arkaan inay yihiin kuwo ka ahmiyadsan oo ka muhiimsan naftooda xataa iyo xidhiidhkooga qaraabo saas darteed bay yani aad u arkaysaa in aabbo iyo inankii ay isku dilayaan diin ama inan dadkii uu kasoo jeeday ula dagaalamaya maadaama ay ka baxsan yihiin diintooda so su-aalaha ka kala jawaabayaanba ismale laba dariiq bay kala wataan markaas saynisku mana noqon karo mid bedeli kara diinta maadaama aanu ka jawaabi karin su-aalaha ka baxsanba xayndaabka empirical science-ka iyo tijaabada ka baxsan marka su-aasha koowaad taas bay ahayd su-aasha labaad ma igu soo celin kartaa waa iloobe waxaan jeclaan lahaa haddii aad ii ogolaanaysaan in aan arrinkan wax kaa weydiiyo arrinka hadda su-aasha labaad waan kuu sheegayaa intaan u gudbin haddii
aadan doonaynin inaan su-aal kaa weydiiyana su-aasha labaad baan kuu sheegayaa. su-aashii labaad codka iga yarka ogaay su-aasha labaad maxaa tiri su-aasha labaad intaan u gudbin waxaan jeclaan lahaa hadalkaaga hadda inaan su-aal kaaga soo celiyo. su-aasha labaad haddii aadan doonin inaad ka jawaabtid su-aasha labaad waan kuu sheegi karayaa. دكتور أحمد وغير الله قسمي ليو سؤال شيء أدودي سؤال قد جوابي marka hadii adiga aad halka soo celiso waxay noqonaysaa dood bay noqonaysaa meeshan su'aal iyo jawaab baan rabnaa marka su'aashii labaad ku celi insha Allah maasanta hay waa maasanta su'aashii labaad waxay ahayd quraanku wuxuu sheegayaa in lix isha lagu abuuray adduunyada iyo magaranaysa dhulka dhamaantiisa jiritaanka oo dhan marka taasoo oo macnaha science-ka toos uga hor imaanaysa adduunka aad buu cimrigiisa u dheeryahay marka fiirisid wax ishooyin lagu koobi karana inuusan ahayn marka say isku macnaha hadda culummadu waxay aaminsan yihiin macnaha theory-ga hadda sharaxaya adduunkan sida u bilowday waa big bang macnaha ma sheegaysa in lix isha adduun iyo wax u dhow uu ku abuurmi karo marka see qofku isku waafajin karaya waayahay allah ku barakeeyo kolley mar aan ama barnaamijka silsiladan mar aan sayniska iyo si guud islaamkaba aan kaga hadlayo oo topigaas iyo tobigyo badan aan gudaha usii dhex gali doono waa ay jiraan hadda haddii aan jawaab kooban ku siiyo kalimatu yowm ama ayaam luqadda carabiga kole culimmadii uu ka mid yahay cuthaymiin iyo sheekh cabdiraxmaan cabdirasaaq sugule waa joogaan ma ahin 24 hour daygan aad tirsato oo keliya oo kuma abtirsadaan qur-aanka laftigiisa xataa meelo badan waxaa ku jirta suurat almicraaj oo kale wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduun so waa ay kala duwan tahay luqadda carabiga ah ma ahin had iyo jeer ma tilmaamto 24 hour day oo 24 saac maalin uun kelmadda looma isticmaalo ayaam iyo yowm so in badan waxaan haddii ilaahay idhaahdo jecelahay inaan topigaas aan aad usii dhex galo markaan ka hadli doono qur-aanka iyo diinta iyo si guudba sayniska iyo ummadda islaamka taariikhdoodiiba marka aad baad mahadsan tahay diinta oo masiixiyadda marka diinta masiixiyaddan waxaad aaminsan tihiin in iyada naftarkeeda uu ka yimaaday ilaahay uu ka yimaado wax laba bedela ay tahay marka see loo dhihi karaa halkaana cisha laga wadaa halkaasna cisha lagama wado wixiina iyagoo xataa luqado kala duwan ku qoran yihiin leo kuwa masiixiinta taa weydi laakiin anigu islaamka waa qusay doctorka weydiinaysaa ta masiixidana wax nama qusayso marka haddii su'aal kala qabtid labada su'aalood waa laga jawaabay haddii adiga kusoo laabatid marka hal su'aal kale aan weydiinayaa waa idin kaga baxayaa su-aasheeda kale waxay tahay adduunyada inay bilaabatay ma arrin scientific aba oo micnaha t ay zero tahay ma arrin scientific aba halo sax marka waa sidaa horta sheekhu u dhigaya waxa weeyaan masiixiyada baad weydiin book Genesis kala dhahday kaga hadlaan dabcan adigiiba dee noo dhameeyey idhi waxaad rumaysantihiinba inay taxriifiyeen iyo bedeleen so book taxriifsan oo bedelan inaan difaaco halkan uma joogo ta kale waxa weeye imana dhibayso dabcan waxay rumaysan yihiin laakiin waxaan ka mas-uulnahay qur-aankuna waxa uu kusoo degay luqa carabiya iyo context ummad af carabiga ku hadasha bugaagta tafaasiirta ahna dabcan qaabkay u fasireen iyo culimmada islaamka iyo kelmadda iyo inta micnay leedahay iyo qaabka loo daliishan karaba turaadkeenay ku qoran tahay ee bibleka iyo christianityga iyo church fatherska midna nooma uusan saldhigin so kaayaga unbaan ka jawaabi karnaa kaayagaas unbaa kaana waana sidaan kuu sheegay oo wax weeyaan yowm ma ahin inay qasab noqoto 24 saac ama ayaam 6 ayaam marka la leeyahay 24 saac oo day iyo night leh lagama hadlayo ta kale eega aad i weydiisay oo ah adduunyadu inay bilow leedahay ma scientific ba iminka waxaan ka hadlayay in adduunyadu ay bilaabantay oo adduunyadu maxayba ka samaysan tahay universe-keena waa time oo socda timekaasi bilow buu lahaa hadduu timeka bilow lahaa everything aan arkaynayna bilow baa uu lahaa oo timekii iyo matterkii iyo energygii iyo space time iyo matter iyo energy afartaas uu universe-ku ka kooban yahay haddii ay bilow lahaayeen oo big bang ay kasoo bilaabmeen then by default oo si calaaduul toos
adduunyada dhan bilow bay lahayd waana scientific oo waxa weeyaan cadeymaha dee maanta dhan adeegsanayaba waxay hayeen kuwo scientifica bay ahaayeen so yes reference markaa haddii aan ku siiyo waxaad ka heli kartaa waxaa jira websites aan mid eega aan ku jecelahayba inaan kula wadaago oo ka hadlaya in adiga horta kuyar weydiiyo ma leedahay adduunyadu bilowna male timekuna waxa weeyaan bilow ma lahayn saa miyaad leedahay maya anigu waxaan leeyahay sida big bang uu qabo wixii blank time ka horeeya ma la garanayo mana aha scientific tii markay zero noqoto ma aha scientific wixii ma garanaysaa blank time ka dambeeya big bang theory macnaha scientific ahaan u sheegaya wixii intaas ka horeeya ma aha wax scientific haddaa ila wadaagi karto oo dadka la wadaagi karto wax qurux badan okay waa sax waad mahadsan tahay so time baa soo bilaabmay so timeka haddii uu bilow lahaa oo spaceku bilow lahaa oo space time iyo energy iyo matter afartuba ay kasoo bilaabmeen big bang sida oo maxaan ku idhaahdaa adigana waan kuusoo diri linkiga website oo ma garanayo clubhouseka in uu leeyahay karaan oo ma garanayo application waa ku cusubahay yes waxaanoo dhanba adduunkan oo universekan oo afartaas ka kooban bilowaa uu lahaa blank science iyo blank time inaan laga gudbi karin laakiin miyaad leedahay time baa jira before blank science-ka ma igu celi su-aashaada maan maqlin garaal noqo waayahay walaal kayf baan soo diraya whatsappkan kugu dira So waxaan akhriyo intaanay soo dhigin the universal origin story known as the Big Bang postulates that 13.7 billion years ago our universe emerged from a singularity, a point of infinite density and gravity, and that before this event space يعني dhacdada Big Bang ka hor spaceka and time did not exist ma aysan jirin space iyo waqti ma aysan jirin Big Bang ka hor which means the Big Bang took place at no place no time hello igaraal waa ku maqla waxaana akrinayso waa maxay yes macnaha in uu timeka uu bilow lahaa runtii wax scientifica ma aha macnaha website-kan hadda aad kasoo qaadanaysano runtii ani waxaan jeclaan lahaa wax ila wadaagayso inaad macnaha study ila wadaagto peer review study inaad ila wadaagto macnaha artikaladan waxay doonaan ay qori karaan mana la factual garayn karo laakiin waxaan jeclaan lahaa qofka arinkan rabo inuu si deeply u baaro uu baari karayaa time macnaha inuu zero yahay cidna lama ogaan karo maxaa yeelay equationada la isticmaalo markii la baarayo originka of the universe waa general relativity-ga markii timeka uu zero noqdo volumeka universegan wuxuu noqonayaa zero equationkaasna wax macnaa ma sameynayo sidaa daraadeed scientific ma aha waa realm oo ma garanaysaa wixii inta blank time wixii intaa ka baxsan waa speculation weeyaan no one knows dadka xataa waxaan barta arinkan ma ogo minaha waa hadda waa waxyaabo minaha dadka philosophy-ga barta arinkan kusii doodo oo ma garanaysa dadka qaar waxay ku leeyihiin timeka minaha it runs backwards minaha waa iska pure speculation aniga xataa waxaan ku dhaho hadda ha qaadan qof kale wuxuu yidhaa ha qaadan laakiin t inay zero tahay qofkii keeno waxaa weeyaan asaa abaalmarin leh marka hadda scientific theory laakiin big bang wuxuu sharaxayaa wuxuu ka bilaabanayaa kama bilaabanaya time oo macnaha markuu eber yahay volumeka universigana markuu eber yahay wuxuu ka bilaabanayaa single point oo macnaha dictorka ka jawaaba dictor hay okay so ujeedadan ka dan lahaa waxay ahayd in ay tahay xilliga so this waa space.com baa la dhahdaa waa website reliable ah ma ahin website-ada oo ay cid walba waxay doontaa iska soo dhigto so waxaan jecelahay inaad yar kala barato website-ada yani kuwa reliable-ka iyo kuwa kale ku kasta aanad iska odhan waa unreliable meel aan source-keeda lagu kalsoonin waxba kama soo qaado
inta ay lahaayeen waxay ahayd in big bangku ay kasoo bilaabantay meel no time ah oo ay big bangku ahayd meel bilowday oo ay ka bilaabmaan waxa la dhahdo space time iyo matter iyo energy intaana waa aniga halkaa ku qoray wixii intaa ka dambeeyay ciddaad madaxa istartaan aniga ma ahinoo anigu ma aansan qorini oo dadkii cilmigan aan aqoonteeda u daba fadhiisanaynay ee aanan anigu mabda ahaan iyo fikir ahaanba aanu iskhilaafsannahay oo qaarkood badankooga ay leeyihiin ilaahay ma jiro qaar badanna agnostic ay sheegtaan mid muslina iyo mid aan wax isku nahayna ma jirto aniga adigaba waxa weeyaan dadkaas baynu u daba fadhiisanaa intan aad leedahayna dadkaad kasoo qaadatay waa dadka intaa qoran runtiina waxa weeyaan cilmigan controversigiisa iyo doodihiisa iyo muranadiisa waa uu leeyahay xagga hore waan ka hadlay laakiin waxyaabaha aynu imika u hayno observation waxaa ka mid ah this big bang theory la yidhaahdo oo ay supportive evidencekeediina aan hore usoo sheegay haddii aad intii hore joogtay marka yes before the big bang no place no time iyo no matter and no energy intaas bay leeyihiin wax reason on ku diidana ma arkayo laakiin if you have your own reasons waxa weeyaan waa caadi cilmigu baxrigaas buu ka badan yahay runtiina waxa weeyaan qaar badan iyagu waxa weeyaan opinions isdiida waa ay leeyihiin Ben Rose oo kale waxa uu leeyahay bahan physics cusub iska bilaabano theoremska iyo waxyaabaha laftigooda yani waa la isku khilkhilaafaa waa ay jiraan calculationskii string theory anaga hore usoo sheegay waa ay jiraan marka waa caadi wixii kale yani difference of opinionsa waa caadi caddaynteedana waad keeni baxdi iyo inaad baadhood wax iga duwan keentana dee wax dhiba kuma jirto waxa weeyaan qul man yaddaci alcilma qad xafidta shay-an waqaabad canka ashyaa qof cilmi oo dhan koobsaday anigu ma sheeganayo qof waxaan ahay arday ah inna waan aqaanaa oo ilaahay waa isiiyey hana ii barakeeyo inna ma aqaano baxdigeediina waa aan ku jiraa labo source oo kala duwan wax kasoo kala qaadan karnaa laakiin aniga masterkayga iyo evidencekaygu waa bogga brief history of time la idhaahdo iyo websitekaasi labadabana dad physics yahanaba soo post gareeyey oo cilmiga physicska loo daba fadhiisto universitieska iyo caalamka adduunkana jaamacadahooga ka dhiga kuwaasna waxa weeyaan dee kuwa ka duwan oo cagsigooda soo bandhigi karayana waa dee hadhowna xujajka unbal isbarbardhigayo wax dhiba ma jirto marka waxaan jecelahay inaan intaa kaga baxo jawaabtaadii waad mahadsantahay